بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan halkan ku qaban doonaa casharo aanu bixinayno taxanaha magacyada Ilaahay ee 99 ah oo aan ka hormarinayno dhowr cashar oo aanu bixinayno casharo hordhaca oo noqon doona saldhig iyo asaas si hadhow loo fahmo loona weeleeyo marka aan rabno inaan sharaxno magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. casharkan wuxuu ku saabsan yahay in faham guud laga helo waa maxay magaca Ilaahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala khalqiga uunka oo dhan isaga abuuray. maadaama uu uunka isaga abuuray waxa waajib ku ah intii uu abuuray inay asaga yaqaanaan oo ay magaciisa yaqaanaan oo ay magacyadiisa yaqaanaan oo ay tilmaamihiisa yaqaanaan. sida darteedna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku yiri fa'lam annahu la ilaha illa Allah. waxaad rabaa inaad barato oo ogaato la ilaha illa Allah. waxyaabaha aad baranayso ayay ka bilaabanaysaa. waxaas aad baranayso marka waa xaq lagugu leeyahay. ilaaha ku irsaaqay ee ku abuuray ee koonka ku keenay wuxuu xaq ugu leeyahay inaad garanaysid si aad u gaartid marka tawxiid oo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad kaligiisa caabudo kaligiisna aad cibaadada u gaar yeesho. waxa laga rabaa marka koowaad inaad Ilaahay garanayso. Ilaahay inaad garanayso waxaa loola jeedaa inaad hubto garashada Ilaahay aad u leedahay. rumaynta aad rumaynaysana inay dhabka tahay oo ay qalbigaaga ku jirto. maskaxdaaduna inay aqbalsan tahay. taasoo ka dhalanaysa inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiis u aqoonsan tahay inuu isagu sharafta leeyahay inuu isagu jiritaankaaga sabab u yahay. marka dambana waxaa laga rabaa haddii aadan islaamnimo ku dhalanin inaad ku dhawaaqdo qiritaanka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullah. haddii islaamnimo aad ku dhalatay waaba waxaad mar walba taqaanid oo aad ku dhawaaqaysid. culimada salafku marka ay fasirayeen aayadda quraanka oo ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun waxay ku fasireen cibaadadaas inay ka bilaabato aqoon aad Ilaahay u lahaato. haddii aadan Ilaahay aqoonin sidee baad u caabudaysaa? sidee baad u tawxiidkiisa aad ugu dhigaysaa mid barax tiran oo aad kaligiis ku caabudo? culimada mu'arriqiinta oo kala duwan xataa qaaran muslimiin ahayn marka ay dunida ku wareegeen waxay yiraahdeen waxaanu aragnay magaalooyin aanan u dhisnayn darbiyo waardiyeeya waa aragnay. magaalooyin aan iskoolo lahayn waan aragnay. magaalooyin boqorada xukuma aysan guryo waaweyn oo qurxan deganeen waan aragnay. laakiin maana arag magaalo aysan ku dhex oolin goob Ilaahay lagu caabudo. magaalo kastoon tagnay waxyaabo badan oo aan ka weynaynay way jirtay laakiin magaalooyinka inta badan waxaan ku arkaynay goob la leeyahay goobtan Ilaahay baa lagu caabudaa. sida darteed Ilaahay caabudaadiisu waa wax khalqiga intiisa badan ay wada ogol yihiin diiman kala duwan iyo siyaabo kala duwan haddii rabaan ha u caabudaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ereyga Allah quraankiisa aad buu ugu soo arooray ilaa culimada qaarkood ay dhahayn 2,000 jeer ka badan buu quraan ku jiraa oo mar Ilaahay tilmaantiisa la sheegayo mar magaciisa la sheegayo marna ficilkiisa la sheegayo. waxaa kaloo garab socota Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxyaabaha uu dadka ku dhiirigeliyay waxaa ka mid ah inay isaga bartaan oo jiritaankiisa bartaan oo ay magacyadiisa bartaan. Ilaahay quraankiisa aayado ka badan 30 uu ku dhiirigelinayaa dadka inay bartaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Ilaahay wuxuu leeyahay i'lamu anna Allaha azizun hakim wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid fa'lam annahu la ilaha illa Allah. aayadahaas oo dhan waxay ku tusinayaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sheegayo inaan Ilaahay barano oo aan magaciisana barano. aayadda la yiraahdo aayadda ugu weyn quraanka a'zamu aayatin fil qur'aan al-kariim oo aayatul kursiga ah kulligeed ama inteeda badani waxay ka hadlaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ama magaciisa ama sifadiisa. ilaa culimada qaarkood markay aayadda fasirayaan ay aad ugu xeel dheeraadaan oo ay dhahaan aayaddaas kelmad walba ama jumlad walba kaligeed bay u istaagi kartaa. haddaad kulligeed wada akhriso Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum
laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm. mid walba waxay ku tusinaysaa magac uu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay ama sifo uu ilaahay leeyahay oo ku dhammaanaysa wahuwa alcaliyu alcadiim. suuradda la yidhaahdo waa suuradda qur-aanka ugu weyn, waa suuratu alfaatixa. suuratu alfaatixa marka akhriso waxaad ugu tegaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadiisa: alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, alraxmaan alraxiim, maaliki yowmi ddiin. qur-aanka waxaa jirta suurad la yidhaahdo thuluth alqur'aan, oo ah qur-aanka markii saddex loo qaybiya mid ka mida waay. iyadana magacaas iyo maamuuskaas iyo tilmaantaa waxay ku heshay in ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaantiisa iyo sifooyinkiisa iyo magacyadiisa ay kuu sheegtay. qul huwa allahu axad, allahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. sidaa darteed culimmadu waxay leeyihiin sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa isugu sheegay, kitaab kale oo uu isugu sheegay ma jiro. qur-aankana markaad u fiirsato magacyada ilaahay markuu ka hadlayo laba dariiquu maraa. dariiqo uu si guud uga hadlayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha, oo si guud lagu leeyahay ilaahay magacyo wan wanaagsan buu leeyahay, magacyadaas ilaahay ku bari. ama mararka qaar si toosa buu magacii u aadayaa wahuwa alghafuuru alwaduud innahu huwa atawaabu alraxiim, oo la rabo inay dhegtaada iyo maskaxdaada ay gasho magacaa tooskaa uu ilaahay leeyahay. culimmada muslimiintu waxay sheegeen siyaabo kala duwan inay qur-aanka ugu soo aroortay magaca ilaahay. mar in si toosaba magaca loogu sheegay oo ay xisaab ahaan ku qiyaasayaan ilaa 55 jeer in qur-aanka magaca toos loogu sheegay. mararka qaarna waxay yidhaahdeen waxaa lagu xusay iyadoo muujinaysa magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala, ama sifo ilaahay ku muujinaysa, ama ficil ilaahay subxaanahu wa tacaala ku muujinaysa. maalan innahu ghafuurun shakuur, ama wallahu yaqbidu wayabsud, yacni markaasa laga soo saarayaa magaca oo ah alqaabidu walbaasid. waxay kaloo culimmadu sheegaan inay jiraan magacyo aan qur-aanka ku soo aroorin laakiin axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam ku soo aroortay oo magacyo fara badan ah, oo alwaajid, almaajid, almuqadim ay ka mid yihiin. sidaa darteed magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa lagu sheegay ama nusuustiisa lagu sheegay waa tirada ugu yar ee aan haysanno magacyada aan garanayno, laakiin magacyada ilaahay intaas mar walba way ka badan yihiin. magacyada ilaahayna waxay u qaybsamaan kuwa rabbi subxaanahu wa tacaala tilmaantiisa ah oo sifa asaga toos u tilmaamaysa ah, sida alxayu, alcaliimu, alsamiicu, alqawiyu, alcasiis, ama sifooyin mashiicadiisa ka waramaya oo mararka qaarna uu wuxuu rabo kugu siinayo ama uusan kugu siinaynin, sida sifooyinka alrasaaq, altawaab, alcafuu, ama sifooyin ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaantiisa sheegaya oo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ceeb ka salin yahay, tilmaamihiisa wanaagsan ee ammaanta u noqonaya sheegaya, ee nasaahadiisa sheegaya, sida alquduus, assalaam, assubuux. saa darteed waxaa kaloo jira magacyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay wax kastoo ammaanaba ay ku hoos jiraan, sida magaca almajiid, alsamad, alcadiim. waa magac wax kasta ay ku wada jiraan, ama sifo ah, ama tilmaana, ama wax ilaahay ammaanayo dhanba laga wada helayo. sidaa darteed ilaahay addoommadiisa wuxuu aad iyo aada ugu dhiirigeliyaa inay ku caabudaan, kuna baryaan, ayna bartaan magacyadaas uu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay. watawakal cala alcasiiz alraxiim, alam yaclam بأن الله يرى اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. maxaas oo dhan waxay ku tusinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo jiritaankiisa iyo barashada magaciisu ay isku hanaan ku socdaan. qofka muslimkaana la rabo inuu si fiican u dhigto. magacyada ilaahay waxay leeyihiin waxyaabo u gaar ah, waxayna leeyihiin tiro, waxay kaloo leeyihiin lafdi xadiis nabiga caleyhi salaatu wasalaam ku soo arooray oo la yidhaahdo man axsaaha. saddexdaas jumladood marka culimmada muslimiinta markay aada u darseen waxay leeyihiin waxyaabaha ilaahay magacyadiisa ay khusuusiga u yihiin waxaa ka mid ah, waxay culimmadu ku sheegaan waxa la yidhaahdo tawqiifi. yacni waxaa weeye magacii ilaahay laga sheegay oo qur-aankiisa ku sheegay ama sunnadu ku sheegay unbay ku eg tahay. adiga awood uma lahaanaysid inaad inta meel fadhiisato aad magac soo alifato oo aad magac samayso. sidaa darteed magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaad nas daliil ah oo aad ka soo aroorinaysid aad u haysato. culimmada muslimiinta qaar ka mid oo mucaasiriintii dhowaa ahaa oo sheekh xasan albanna uu ka mid yahay waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala laguma magacaabi karo magacyada mucaasirka ah muhandisul kown. ilaahay asagaa dhulka injineeriya, ma oran kartid magaca nas ku soo arooray ama aayad sheegaysa ama xadiis sheegaayo ma ahan. sidoo kale waxay leeyihiin khusuusiyaadkiisa waxaa ka mid ah waxyaabaha u gaarka magaca ilaahay in aanan magac shar tilmaamaya
oo asalkiisa shar ka imaanayo aana ilaahay subxaana watacaala lagu sifayn karin oo aadan oran karin ilaahay waa shadiidul ciqaab ama aadan dhihi karin ilaahay waa sariicul xisaab waayo ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku dhahay nabi cibaadii أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وأيضا كاغا موقتو تلمانتي وناكسنين توصبو الشيغي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم مرك إلهي سبحانه وتعالى صفة كدالنا يسا الدين مغح شرعي كدالنا إلهي سبحانه وتعالى توص لوغ متلمامي كرو أما اللوغ مدي كرم مغع وحاجنا مغعية وإلهي سبحانه وتعالى لقاريهي وكلي ليهي وحكم الرحمن waxaa jira magacyo la wadaagi karo oo khalqigiisu ay la wadaagi karaan asagoo si kale iyo sifo kale leh oo ay kamid tahay as-samiic waxaa jira waxyaabo ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo khalqigiisu ay xagga sifada mararka qaar ay si u wadaagi karaan laakiin ay kala duwan tahay meeshay ka imaanayaan waxaa kamid ah al-muntaqim ama argute waxay dhahan khalqigu marka uu sameeyo argudashada wuxuu ka imaanayaa nacayb wuxuu ka imaanayaa karaahiyo wuxuuna ka imaanayaa dan shakhsiya uu leeyahay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka keenayaa cadaalad inuu sameynayo sidaa darteed magaca ilaahay wuxuu ku dhagan yahay mararka qaar maskaxdaadu meesha ay u diyaarsan tahay marka ay maqasho waxa ku soo dhacaya maxaa ka mid ah haddaa allah maqasho ilaahay subxaana wa tacaala keliya ayaa kugu soo dhacaya haddaa maqasho alwaaxid waxaa kugu soo dhacaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu keligiis yahay saa darteed waxyaabaha jiritaanka ilaahay ku barayay ka mid tahay markaad alwaaxid maqasho ilaahay baad xasuusanaysaa oo maskaxdaada ay ku soo dhacaysaa saa darteed magac kasta oo wanaagsan oo qurxan ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaantiisaad ka baran doontaa tilmaantiisa wanaagsan baad ka baran doontaa magaciisa wanaagsan baad ka baranaysaa waxay kaloo culimmadu ka hadleen tiradan la yiri 99 maxay tahay waayo quraanka magacyo ilaahay subxaanahu wa tacaala fara badan baa ku soo aruuray oo culimmada qaar markay findicileen oo istiqaaqaadkeeda aadeen oo aruuriyeen qaarkood ilaa 120 magac bay gaarsiiyeen xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ee dhahaya inna lillahi 99 isman man ahsaaha dakhala aljanna culimmada qaarkood waxay ku fasireen inay tahay 99 kan haddii aad barato oo aad xifdiso oo aad weelayso inaad janno ku galayso marka culimmadu waxay yiraahdeen waxay la mid tahay sidii adigoo dhahay hebel wuxuu haystaa 1,000 dirham ama $1 haddii lacagta maanta jirta aan isticmaalno $1 buu haystaa 1,000 doolarna wuxuu ugu talagalay sadaqo macnaheedu maaha inuusan xoolo kala haysanin waxayna culimmadu u daliishanayaan xadiiskii ducadii ku jirtay asaluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik وعدينيس إلهي سبحانه وتعالى مقعيدي سنة لسو كوبي كرين تلمامه سنة أن لسو كوبي كرين لكن لو تلقالين مقعيد لمبر كان سقاشن يسقال كالله الشيغي أما مقعيد إلهي ولا الشيغي إن أديق آد إلهي كتوكتو أو تكو بريدو سيدا درتي العلماء وحي ليهين مركز قرآن كاللمبر كو أركتو أما حديث كاللمبر كو أركتو مركز خاروا توقيفي وحال إرادة الزبانية إني سقال يتوينيهين محال قوضا من نقانو albaabada jahannamada waxaa la yiri waa 7 ma naqaano waxay tahay salaada waa la ratibay 2 3 4 4 sababta loo jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa garanaya sida darteed culimadu waxay leeyihiin kelmadda la yiraahdo ahsaaha waxaa loo jeedaa in lafdigeeda fahamto tiradeeda fahamto macnaheeda fahamto ilaahayna aad ku barido culimada sida tafsiirkaas u sheegtay waxaa kamid ah ibn qayyim al-jawziya oo sheegay maraatibta saddexda ah oo ah inaad magac ilaahay tira ahaan u taqaano lafdi ahaan u taqaano waxay ku tusinayaan taqaano fahamkeeda taqaano ka bacdina aad ilaahay ku barido sida darteed waxaa laga rabaa qof kasta oo muslima inuu la yimaado aqoon uu leeyahay magacyada ilaahay oo magacyadaasna uu alla ku bariyo mar walbana baahidiisa mid ka dhalanayso oo ilaahay ku bariyo hadaa faqiir tahay inaad ilaahay ku barido al-ghina ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ghani هاد مقع غني إلهي كبرده هذا ضباهن تاي كرم إن لو شرفه إن دقسي عن نقطة إن حوالها لو وفره ضربت إن إلهي وهاب وكدقسيه وكدكود دقتامه هاد بباهي هذا مقع أوله إن كبرده سادرس العلماء المسلمين تو مقعيد إلهي كتبات وفربضان بك قرآن أنت أنا شخصيا أنا أركي أن ليزجري علماء تاريخ الإسلام كأن مقعهان وقرآن ليزجري boqol iyo 54 kitaab bay ka badan yihiin waxay ku tusinaysaa marka intaas hadaan aniga arkay in inta kale boqolaal kitaab ay jiraan oo culimada muslimiintu ay ka qoreen intaasna waxay ku soo koomaysaa qofka muslimka ah muhiimadda ay u leedahay inuu barto
magaca ilaahay subxaana wa tacaala iyo tilmaamaha ilaahay oo hadhow la rabo inay kuu noqoto dhaqan jiritaankaaga iyo shakhsiyadaada qayb ka noqda والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة ربي الله وبركاته. وحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبك ما غرسون قلبي وهن